السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وطعنين عليدي أورك إسرائيل qaybtiisii saddexaad waxaanu muuqaalkani kula faguraynaa taariikh nololeedkii mudane cabduqaadir sheekh sakhaawadiin. inta aan u gudan gelin muuqaalkan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto, laagtana taabato, siina sheer garayso muuqaalka. cabduqaadir sheekh sakhaawadiin wuxuu ku dhashay tuulada Tayaglow, taas oo ku taal dhinaca Biyooley ee gobolka Jubbada Sare. Sanadka markuu ahaa 1919 wuxuu ku dhex barbaaray qoys diin leh, kuna dhex barbaaray culummada qaybta Suufiyadda, isagoo ka qaatay culummadaasi aas-aaska diinta Islaamka. wuxuu Qur'aanka xifdiyay asagoo yar, wuxuuna bartay luqadda Carabiga isaga oo sugay qeybaheeda kala duwan. wuxuu barashadaasi waday ilaa uu ka qaangaarayay, ayadoo barbaarintii diiniga ahayd ee qoyskooda iyo tarbiyadii ruuxiga ahayd ee wadaadada Suufiyadda iyo daalacashada iyo akhrinta kutubada diiniga ah. waxaasoo dhan waxay raad ku yeesheen dabeecadihiisa shakhsiyadeed. mudane cabduqaadir sheekh sakhaawadiin waxay xoojisay ama awood siisay dareenkiisa diineed, gaar ahaan ku biiritaanka dariiqada qaadiriyadda. waxay gaartay dareenkiisa xagga diinta ah inuu rumaysnaado in lagala hadlay asiga oo hurda ama soo jeeda arrimaha qaar ee qarsoon, asaga oo naftiisa u sheegay inuu yahay sheekha islaamka wadankiisuna uu gacantiisa kaga badbaadin doono isticmaalka. markii ay xoogsatay arrintan, wuxuu bilaabay inuu aas-aaso xafiis ay isugu yimaadaan dadku kuna baro diinta Islaamka iyo mabaa'ideeda. wuxuu kaloo ku fikiri jiray inuu mar uun aas-aaso hay'ad samafal ah, arrintaas oo ku qaadatay waqti aad u dheer. waxa uu ahaa mid aan marnaba ka daalin inuu dadku wax baro, isla markaana shaqeeya lehna firfircooni uu hoohiis ku qabto. wuxuu ahaa qof naxariis badan oo waxyaabaha bulshada ka dhex jira inuu xalliyo markasta u taagnaa ilaa ay tii Rabbi kaga timaaday. waxay kulmeen saaxiibkiisa aadka ay isu jeclaayeen ee Yaasiin Xaaji Cismaan. wuxuu kulankoodu ahaa furihii khayrka oo dhan iyo waa cusub oo biriyay ummadii Soomaaliyeed. mudane Yaasiin wuxuu ahaa nin leh darajo aad u weyn oo ah xagga ogaanshada iyo aqoontaba. markiiba waa uu dumay markuu arkay in mudane cabduqaadir sheekh sakhaawadiin isagoo la yaabay awoodaha xagga diiniga ah ee uu leeyahay, taas oo Yaasiin u awooday inuu u wareejiyo mudane sheekh sakhaawadiin xagga wadaniyadda, isagoo arkay inay tahay meel ku habboon. taas oo uu u soo bandhigay saaxiibkiisa in ay aas-aasaan gogolo ay ku kulmaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee xorta ah si ay u wadaagaan aragtidooda kuna wajahaan wadanka iyo midnimada dhulkooda. waxaana lagu aas-aasay golahaasi dadaalkii ay bixiyeen labadan saaxiibo iyo saaxiibadii kale ee soo raacay. cabduqaadir sheekh sakhaawadiin wuxuu lahaa awood diini ah iyo mid shakhsiyadeedba oo soo jiidasho leh iyo dabeecado wanaagsan, taas oo ka dhigtay inuu noqdo xubintii ugu horeysay ee dhalinyarada Soomaaliyeed ama hogaamiyihii ugu horeeyay ee golihii kulanka dhalinyarada Soomaaliyeed ee 13 ahaa. wuxuu ahaa hogaamiyahooda koowaad, wuxuu noqday hogaamiyihii ugu horeeyay ee xisbiga midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed. wuxuu gaaray xagga wadaniyadda heer aan la sifayn karin. wuxuu ahaa tusaale lagu daydo iyo xubin wanaagsan oo dadka ka mid ah. wuxuu muujiyey himadiisa sareysa iyo afcaashiisa waaweyn iyo diyaargarowgiisa wanaagsan. waxaa lagu xasuusta wanaagsan intii la doono. wuxuu kala gooshi jiray magaalo ilaa magaalo, asagoo u khudbayn jiray dadka Soomaaliyeed
kana wacyigelin jiray waxyaabaha dhibka ah ee jira. Wuxuu isku dumi jiray qulubtooda, kuna beeri jiray wadan jacayl, taas oo u awooday caadifadiisii diiniga ahayd iyo inuu huriyo dareenkooda iyo xamaasadooda. Wuxuu u ifiyay dadii halganka, kama uusan daalin inuu dadka ugu yeero dalka in laga xureeyo gumaysiga iyo in lagu dadaalo horumarinta muwaadiniinta. Mudane Sakhaawudiin, Allah u naxariistee, waxaa lagu imtixaamay xanuun xubnaha ah kaas oo uu dhakhaatiirtu ka quusteen. Waxaa la yiraahdaa halgankii uu la galay isticmaalka iyo ciriirigii uu noloshiisa galay darteed ayaa loo sumeeyay, taas oo dadajisay cimrigiisa. Geeridiisa wuxuu dhintay bishii Agoosto 1945 asagoo dhalinyaro ah, jiran 26 sano. Geeridiisu waxay ahayd mid ay ka murugoodaan muwaadiniinta, gaar ahaan dadkii yaqaanay wanaagiisa, kuwaas oo aan hilmaami doonin noloshooda. Wassalaamu calaykum.